asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. subax wanaagsan akhyaarta qiibaha iyo qayaha naga mudan minuba aad joogtaan dunida dacladeeda. waxaa idin leenahay aruuryo suban xog imaaraadka etoobiya iyo somalilan oo kulan qarsoodi ah yeeshay. dowladda imaaraadka carabta ayaa ballan qaaday inay laba jibaarayso horumarinta maalgelinta dekada berbera si ay u noqoto dekad ay isticmaali doonaan dowladda etoobiya iyo dalalka kale ee africa ee bilaa dekada. wargeyska Indian Ocean ayaa cadadkiisii ugu dambeeyay qoray in 28 Juun 2018 ay magaalada Abu Dhabi kulan saddex geesooda oo ballaaran ku yeesheen wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Saad Ali Shire iyo madaxda ugu sareysa shirkadda DP World Sultan Ahmed bin Sulaiman iyo ku-xigeenkiisa iyo wakiilo ka socda dowladda Ethiopia oo ay matalaysay shirkadda dowladda Ethiopia ee Ethiopian Shipping and Logistics Service Enterprise ESLSE. waxay saddexda dhinac isku raaceen in la kordhiyo horumarinta iyo maalgelinta dekada berbera, iyada oo halkaas agaasimaha DP World kusoo bandhigay mashruuc xarun ballaarin ah oo kayd u noqon doonta DP World ee laga dhex sameynayo gudaha Ethiopia si ay xaruntaasi dalalka kale ee bilaa dekada ah ee Africa ugu noqoto suuq ay alaabta uga sii gudabto. wargeysku wuxuu sheegay in dowladda imaaraadka carabta ay ballaarinayso saameynta ay ku leedahay gobolka geeska africa, taasna ay doonayso in meelaha ay u marayso ay ka mid noqoto dekada berbera iyo Ethiopia oo ay isku xidho. wuxuu wargeysku soo xigtay kulamadii kala duwanaa ee bishii hore yeesheen ra-iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxda dowladda imaaraadka carabta. ilaa bishii Maarch sanadkan wuxuu wargeysku sheegay in imaaraadka carabta diiradda saare ballaarinta dekada berbera si ay u suurto gasho in dekadani ay la wareegto suuqa ganacsiga dowladda Ethiopia. halka naga daawanaysaan waa Muqdisho TV. axmed jaziira, maxay Etoobiyaanku iyo imaaraadka weli isugu xiran oo dowladda dhexena ee Etoobiyaanku kala hadleen in dekada lagu wareejiyo oo midnimada Soomaaliya laga shaqeynayo? ilaa haddana waxaa muuqata in labada dowladoodii ay weli wadaan faragelinta midnimada Soomaaliya. waad mahadsan tahay cawke. Ethiopia waa horta dowlad soo jireen oo aan dabaceedii Soomaaliya inay la wareegto uusan marna baxaynin, marka aaga ay weli ku tartamayso oo ay doonayso inay wax ka qabsato weli waa Soomaaliya, laakiin uma soo marayso waddo xalaala. shirkad ayaa iminka matalaysa oo wax mas-uul Ethiopian horta shirkaasi hadda wargeyska oo Indian Ocean soo xigatay weli ma jiro, waa shirkad qura. laakiin dowladda imaaraadka carabta waa inaad ogaataa in dabaceedii ahaa in Soomaalida ay kala geyso inuusan dhammaan, in Soomaalida ay dhaqaalaheeda burburiso inuusan dhammaanaynin ilaa Soomaaliya ay ka xoogaysato oo ay tartankaasida taaganaanayo. maxaa yeelay waxaa laysku dagaalayo oo waa aaga annaga aan ku aano iyo aaga ayaga ay ku yaalaan. tartanka waa tartan ganacsi, marnaba dhammaado. waad aragteen Mareykanka iyo midowda Yurub, waad aragteen waxa laysku hayo oo cashuuraha laysku kordhinayo, ganacsigaasi ma dhammaanayo. innagana markii aan Soomaali ahaan aaga ilaahay nagu uumay mar walba waxaa tartan nagala dhexeynayo waa dowladaha dariska nala. waxaa loo baahanya marka inaan tartankaasi dulqaad u yeelano iyo awood aan iskaga difaacno. haddii aan noqono kuwa dowladihii dariska ah u fududeeya damacoodii, waxaan noqonaynaa kuwa mar walba lagu istaaga oo cagta hoostooda mara oo aan horumar gaarin. marka Ethiopia iyo Kenya iyo dowladaha kale iyo imaaraadka kuwa badda naga xigtaba waa inaan mar walba feejignaan inay ka qabnaa, maslaxadeennana ka doonana. haddaan isku dhiibno oo nilaanano maslaxadeena ka taliya, marna maslaxadeena kama talin doonaan, waxayse ka talin doonaan burburkeena iyo halaageena. marka imaaraadka kheyra ka suginana. Ethiopiana mar walba in laga feejignaadaa. waa dowlada hadda isbedel sameynayso, waxaa laga yaabaa inta lais yidhaahdo Ethiopia isbedelaysa, inta lais yidhaahdo in hal mar nagu soo habsato oo bilaayo naga raacdo. waa in laga feejignaadaa oo aan taxadarkeeda yeelanaa.
Soomaaliya iyo Eritrea isku mid ma markii la fiiriyo waxa dadku ku anducaan waxay leeyihiin Ethiopia ba Eritrea ay leeshiiday wax dhibaata ma jiraan Soomaaliyana ma sidaas ma xigto Ethiopia Eritrea waa dawlad dhisan oo kiyad dawlad leh military leh police leh xuduud leh aan mucaarad lahayn shacabkeedu ay u nidaamsan yihiin dawladnimo meel laga soo galaayay hadda dawladdaasi ma jiraan madaxdana waxay awood u leeyihiin inay heshiisyo la galaan hadhowna ka baxaan haddana waa dawlad ay calaaqaad taariikhi iyo walaaltinimo ka dhexayso waa dawlad Oromo Eritrea madaxdan waa dawlad kale Oromo marka xiriir anaga marna ma yeelan karno oo sida Ethiopia Eritrea u yeeshaan anaga ma yeelan karno Ethiopia ay ka mid ah Eritrea 93 ay ka gooday soo marka waxyaabo far badan oo xiriir kala ka dhaxeeyo isku tixgeliyaan waa isla Christian anaga waxaan nahay Muslim oo dhinac kale cadaawad kale nagala dhaxayso marka dadka ku adduunaya Eritrea wiilashiisa waa caadi Soomaaliya waa inay feejignaata oo ay ka taxadartaan oo taas kula talinayo ummadda Soomaaliyeed iyo dawladdeeda sidoo kale dar u soo noqdo maamul goboleedka Somaliland waxaan dhihi lahaa kulli waxa weeyaan dhulkani dadka iska lahaa ayaa u soo tashanaya oo nidaam u soo degsanaya adigu waxaad tii ku sameeyaan maxaa yeelay haddii aadan kala tashanin dawladda dhexe oo aadan soo dawladaynin barnaamijkiina oo aad si suuq madow aad ku wadaan waxaa imaan doona maalin dadka Soomaalida markay tashadaan oo kiyaankooda dhistaan oo caqabadaha ka gudbaan in wixiina ay noqon doono kuwa fashil imaaraadkana aad kula fashilmi doontaan wejigabaxna kala kulmi doontaan kula dardaarmi lahaa marka inay joojiso waxyaabaha faragelinta waddanka ku ah iyo dawladaha shisheeye waddanka soo gelinayso intaasaan anigu ugu dari lahaa cawke wada mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa falanqeeyaha janalka Muqdisho TV Axmed Jaziir oo maanta ku martay ahaa barnaamijkeena meel walba aad joogtaan waxaan idin leenahay subax wanaagsan